power supply. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دمانتين وسلامتين انت الصومالي ku hadasho waxaan maanta sharaxayaa power supply aan sharaxayaa sida u jeeday unitkan waa power supply kana waa power supply waa sharaxi doonaa kana waa sharaxi doonaa waa power supply kana waa sharaxi doonaa oo isagana power supply kale iyo kan oo xoogaa yar isaga ka duwan laakiin waa ku sharaxi doonaa soo soco halkan power supply gan sidaad u jeedid wuxuu leeyahay input iyo output. inputkiisu waa saddexdaas wire plus iyo minus iyo ground. taas muhiimaan tanaan raba inaan xoogaa yaraa xoogga saaro waa tan ujeeda halkan inputka waxaa ku qoran AC 100 ilaa 240 voltage. intana waxaa ku qoran frequency-ga, intana waxaa ku qoran ampka. halkan outputka inputkiisa waa kan soo galayo, output kiisana waa maxaa kan oo bixinayo oo kan yahay waa low voltage. marka outputkiisu waa 12 wuxuu leeyahay marka aam uu leeyahay halkan haddaad ugu jeedid waa 8.5 aam outputkiisa waay. marka waa muhiim inaad taqaanid inputkiisa iyo outputkiisa. voltagekana waa inaad taqaanid fahamsanta voltageka iyo nuucuu yahay. hadda kan waa maxaa AC, kana waa DC current waaye, DC arm waaye sidaad u jeedid. ilaahay kuu saalina fahamtide yaa. marka waa power supply. power supply-ga maxaa ku dhex jira? intaanu component-a ku jirto, intaanu shay ku jirto. waa inputkiisa, waa outputkiisa, kana waa extra oo battery lagu isticmaali karo. battery aad ku dhaji kartaa sababtoo ay markuu korontada ka tagto batteriga backup ahaan batteriga qaadanaya ka bacdi batteriga la wareegaya hawsha. waa power supply. kana waa power supply gudihiisa waxa ku jira ka dhaqaaq. halkan waa variable waan bedeli karaa ujeeda waa power supply. voltagekiisa haddaad u jeedid waa 36 voltage 10 aam waaye. so waa bedeli kartaa intaas ka badan ma aadayo markaad wax inaad ku habaysid ama electronica ku shaqaysaa. voltagekan waa u bedelaysaa, waa la ciyaaraysaa. waa power supply. marka kano waxaa jiro analog. waa kan analogiis. powerka intuu ka qaadanaa, high voltage intuu ka qaadanaa, inta waa plus minus. ka bacdi intaad aamkiisa intuu kaaga sheegaa ilaa 3 aam u qaadanaa. halkaana ilaa 150 voltage u qaadanaa. on iyo off uu leeyahay. intaad ku increase karayni halkan iyo halkan ku adjust karayni. marka volt why muhiim u yahay aan uga hadlaa maanta. meel la dhahayo bakaaraan aaday cabdishidee meel la dhahayo. marka waxaan raadinayay power supply. halkan u jeedaa power supply kale qiyaastiisu waa mufiir. waxaa galayo 115 ama 230
voltage aa gelayso waxaa baxaya maxaa way 0.46 ilaa iyo 20.26 oo amo leeyahay. frequency-gana waa kaasa 50 ilaa iyo 60. 50 waa afrikaanka ka voltage-kana africa loogu isticmaalo 230 240 saas. output-kiisa fiir muhiim inuu yahay. output-kiisa wuxuu dhahaa 24 1 amo bixinaa waa low output-kiisa bixinaya, laakiinse voltage-ka soo galaayo waa ujeedaa wuu weyn yahay. waa muhiim marka caamka mujeeda caamka inuu kan hadda 1 am yahay. kii haddaa inaan tusinayay oo ahay 8 barmium 8.5 sidaa ugu jeedid mujeeda. marka khiyaarta waa aad iyo aaday muhiim u tahay inaa currentiga output-ka power supply-ga power kastaba markuu soo galo intuu bixinayo waa inaad ogaatid voltage-ka, waa inaad ogaatid voltage-ka nuucuu yahay, ma DC ma AC ba. laakiin sin kastoo badankood ay DC yihiin sababtoo electronic loogu isticmaalo. aamkana waa muhiim inaad taqaanid. aamka hadduu yar yahay electronic uu kaa gubaa, ilaanse wuxuu isticmaalaa electronica ilaa iyo wax 5 ama 4 ama 6 oo isticmaali karaa oo current. hadduu 3 bas jiidaayo markuu wuu kululaana uu gubaa wixii. fahad marka currentigu waa muhiim. currentigu waxaan ka wadaa waa aamka oo maxaa way maxay dhahaan ampereka waa inaad taqaanid intuu bixinayo. qasab haddaadan garanaynin taas waxyaabahaad u isticmaalaysid power supply-ga uu kaa gubi karaa. marka power supply haddaad gadanaysid ama haddaad iibinaysid inaad intaas qofkii aad u sheegi kartid waa muhiim. sababtoo waxaan aaday oo qabsatay waxaan aaday bakaaraha markaan aaday aan isku dayay inaan ka dhaadhiciyo currentiga waa muhiim inaad fiiriso. way fahmi waayeen way war shaqadooda ma ahan. waxay ku leeyihiin qaado wuu shaqaynaa. of course wuu shaqaynaa, laakiin se ilaa iyo intee la-eg uu kuu shaqaynaa. marka qaarkood way fahamsan yihiin, qaarkoodna ma fahamsano. wuxuuna joogaa meel oo technical ama electronic oo gagadooya. marka dadka garanaynin way iska gadanayaan, markaasay alaabtii ka gubani waxay sameeyaan ma garaan, mardam way ku soo celinayaan. marka aamka waa very important khiyaarta.